الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ولا ليال دمانتين وحويان وحندكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن إن شاء الله تعالى جالستين معتا إن إذن لو ذاقو أما هالكن إذن كسو قد بيو ما نصير والله يرهدو أذيك يعجبيه وهوري أن أتريه هورينا أن أدوبي رنتي لكن ما دام ما نصير دب بدن تاي إن أن دب أدوبه أيه وحويان لا يقعد صدي رنتي ما صدان وما صو صدا كموقته يعني سي أنا هين أن أجدد كلها لكن waxaan ku halqabsanay iyo waxaan kaga hadlayay marka la fiiriyo dadku sida muuqata oo bay inta badan ay ka raacaan wana la oran karaa waxa weeyaan waa maaso waxa weeyaan seef laba afle ah oo marka waramaysa sida muuqatay daahirka ah marna ka waramaysa waxa weeyaan in ujeedadeedii kale aan hore u sheegay gabagabadiisana aan ku sheegi doono in ujeedada aan ka lahaa maasadan iyo waxay ku saabsan tahay laakiin ujeedada dadku way xiiseynayaan anigana waxa weeyaan kolka hore aan gaashaanka ka dhigan jiray ayaan idin hormarinayaa oo waxay amaanaysaa maasadani haweenka ayay amaanaysaa waxaan sawirayaa nin Soomaaliyeed oo jaalaaday gabadh ama xaaskiisaba ah gabadhu inay tahay iyo inay ahaynba wallahu a'lam laakiin gabadhan ayuu ku mirqaansan yahay uu amaanaya طبعا waxa uu ku amaanayo waa wixii isagu uu ku qancay iyo quruxdii waxa weeyaan uu ku qanco gabadhan oo ku rabay quruxdu waxa weeyaan shay la isku waafaqsan yahay ma ruux badin abu ka arka ruux dheerarka la quruxa ruux gaabnida la quruxa ruux dhoobnida ruux buurnida ruux qalaafada ruux caga toosinida ruux waji ballaarnida ruux indhayreeraanta ruux indhaweynaanta ruux ba quruxda dhinac buu ka arkaa anu sibaan u aqaana adiguna sibaad u taqaana saaxiibka sibuu u yaqaana hebel kale oo saaxiibkaana isna si kale ayuu u sawiri lahaa hadii la weydiin lahaa tobanin oo meel wada joogtay inay isku ra'yi ka noqdaan laga ma yaabo hadii haweeney ay soo agmarto la haweeneyda ka waramana waxa weeyaan inay ku aragti duwanaadan ayaa laga yaabaa marka waxaan rajeynaa inaad la yaabin ninkan odayga ah waa nin barakaysan sida ka muuqatay qanaaca waa ka muuqatay iyo isku kalsooni aada ayaa ka muuqata sidoo uu amaanay markaan fiiriyay xaaskiisa anigu erayadan leeyahay iyo hadalkiisa isku hagaajiyay mooyaane waxaan igu saabsan waxa weeyaan maaha fikradu waa fikradii ninka odayga ah iyo aragtidiisu anigu erayadii gabayga ayaan isku toostoosiyay marka wuxuu leeyahay gabar yahay calool xumo iyo coonta aad tahay ayaad igu cajabiso markan yara cidloodaba camalkaaga liitaan cindigayga geliya gabar yahay calool xumo iyo coonta aad tahay ayaad igu cajabiso markan yara cidloodaba camalkaaga liitaan cindigayga geliya gabar yahay canaagiyo uqdadaada buuxdiyo indhahaaga cawlkiyo carabkaaga dheer iyo caafimaad la'aantani ayaad igu cajabiso marka aad candhuuftiyo cay igu asqaysaan farxad caga jugleeya gabar yahay canaagiyo uqdadaada buuxdiyo indhahaaga cawlkiyo carabkaaga dheer iyo caafimaad la'aantani ayaad igu cajabiso markan yara cidloodaba camalkaaga liitaan cindigayga geliya caafimaad la'aantani ayaad igu cajabiso marka aad candhuuftiyo cay igu asqaysaan farxad caga jugleeya timahaaga qoofka ilkahaagan cagafta lugahaagan cuudkee xubnihii aan celinayn socodkaa lugahaagan cuudkee xubnahaaga culisee socodkii ka caagaan kugu soo calmadayo adigay cajabiyo cadarkaad karhaysa cajiskayga biya timahaaga qoofka ilkahaagan cagafta lugahaagan cuudka xubnahaaga culisee socodkii aan celinayn kugu soo calmadayo adigay cajabiyo cadarkaad karhaysa cajiskayga biya ereygaaga ceebta hadalkani cabaadka yartay igu casuumtaay curadii doqmaha ay cudur lagu tilmaamiyay caqligayga deeqde cidlaha igu bayday ereygaaga ceebta hadalkani cabaadka
yartii igu casuumtaay curadii doqmaha ay cudur lagu tilmaamiyey caqligayga deeqde cillaha igu baylhin marka aad cataabteed i canaananayseed igu sii colcelisaan farxad caga jugleeya marka aad cataabteed i canaananayseed igu sii colcelisaan farxad caga jugleeya ma ogtahay cawaan yahay waxaan kugu ciseeyaba waa calaacalkaage foolxumo cusaybaay caraf laga fogeeyey cidi qarandileeyey cunto badan halaagtoy ciridkaaga weynee dabnihii aan celinayn cufnaantaada gaabnida inaad ciidda hoos tahay ayaad igu cajabiso caawimaad la-aantan caku kugu jeclaada foolxumo cusaybaay caraf laga fogeeyey cidi qarandileeyey cunto badan halaagtoy ciridkaaga weynee dabnihii aan celinayn cufnaantaada gaabnida inaad ciidda hoos tahay ayaad igu cajabiso caawimaad la-aantan caku kugu jeclaada cududaha jirfaystiya cunahaaga dhuxusha iyo caada xumidaad dumarkaga cag badiso caynkaaga inaan helo dhaaxaanu carare calanguur bal ila taag cududaha jirfaystiyo cunahaaga dhuxusha dumarkaga cag badiso caynkaaga inaan helo dhaaxaanu carare calanguur bal ila taag inan yahay casiiskii hadduu caynkan yeeluu calafkaaga kaa dhigay inan yahay casiiskii hadduu caynkan yeeluu calafkayga kaa dhigay cilmibaa ku duugana cishadaynu kulannaba ciil aynu dhimanne cashiqayna noo dhowr maalintaynu kulannaba waa inaan ciil dhibanaaba kule isaga sidan ay farxadiisa ku jirta farxad iyo nin ubax u baahan maaha ninkan wuxuu leeyahay cishadaynu kulannaba ciil aynu dhimanne cashiqayna noo dhowr inan yahay casiiskii hadduu caynkan yeelo calafkayga kaa dhigay waxaanoo dhan ba haddii isku kaa daray waxbuu leeyahy waa casuumad gaara oon allah subxaana watacaala dhankiisa ka hele cilmi baa ku duugan xikmad baa ku jirta waxaan oo waxa weeyaan ammaanaan ku siiyey ilaahay kugu barakeeyey xikmad baa ku jirta marka cishadaynu kulannaba ciil inaan dhintaan rabaa buuli anigu sidaas baa ayaa caafimaadkeeda ku jira cishadaynu kulannaba ciil aynu dhimanne caashiqayna noo dhowr marka maxaad is odhan lahaydeen ninkaas odayga ah ee soomaaliga ee gabadha sidaas u ammaantay gabadh intaasoo sifo oo waxa weeyaan xumaan isku darsatay weliba uu ku qanacsan yahay wuu og yahay inay intaasoo dhibaataa qabto laakiin uu ku qanacsan yahay soomaaliya waxa weeyaan maansadu waa maansadii qabiilka ku saabsaneyd waa qabyaalada sidaan ku nahay ilaahay aan ka cabsano qabiil sidaas inuu u quran yahay waa la og yahay intaasoo balaayo iyo ka badan baa kusii hoos duugan waan ka xumaa inaan gabadh ku matalo sababta loogu matalayna waxa weeye dee rag iyo gabdhihiiba ayaa isku imtixaaman marka in gabadh laga dhigo si indhuhu usoo jeestaan waxa weeyaan bay ila noqotay laakiin qabyaalada soomaaliya sida ay si ka daran ayaa tihiin idinkoo le waa qurun oo qabyaaladu waa wax xun oo qabyaaladu wax weeyaan ina burburiyey weeye ayaad haddana ku dhegan tihiin iyada ayaad waxa weeyaan isku xidhiidhinaysiin iyada ayaad isku xiirinaysiin iyada ayaad isku wanaajinaysiin iyadaad isku xumaynaysiin marka masiibadaas ilaahay subxaanahu watacaala ummadda ha ka koriyo wixii gafa ah ilaahay ha naga saamaxo ilaahay aan ka baryaynaa inuu naga saamaxo wixii tusaaleyn iyo toosin ee waxa weeyaan ansaxayna waxaan rajaynayaa inay faa'iido inoo dhexa inay noqoto ayaan rajaynayaa dumtum في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.